munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay lacagta shilinka Soomaaliland ayaa lagu qabtay laanta banka Laascaanood waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha madaxa horjoogaha laamaha bariga Soomaaliland maayirka degmada Laascaanood gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool iyo waliba maamulka laanta banka Laascaanood ganacsato iyo waliba sariflayaal ugu horreynna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha banka Laascaanood Diiriye Xaashi dollar garan mayno kanaynu garanaynaa keeni baynu qiimo u sameeynaa inaynu qiimo u sameeyno oo soo wada dhaweyno oo uu inoo kaco halkii dollarku kor u soconaya xagga sare oo isagii kor inoo u kaco beri laga bilaabo waxaynu sameynaynaa haddaynu nahay dadweynaha shaqaalaha iyo dhammaan dadka oo dhan inaynu Soomaaliland saadka ku qaadano qof walba loogu shubo dollarka yarayno ilaa intaynu yarayn karno beri laga bilaabo reydka dollarka iyo shilinka Soomaaliland la isku sarifayo banka goyn doona wixii xawaalada 30 boqolkiiba 30 boqolkii dollar $30 oo kamida in lagu siiyo shilinka Soomaaliland haday tahay biyo haday light tahay haday waxbarasho tahay haday wholesale-radii tahay haday hodheelada tahay in shilinkii lagu isticmaalo oo dollarkii laga daayo inaynu mobilkeena shilin Soomaaliland ka dirsan karayno caruurta looga dirayo iskuulka waa wax aad u muhiim ah inaynu inagu xukuno reeyd goyno oo aynu la dagaalano isku mid aynu ka ahaano yani waa wax muhiim ah oo ummad walba lacagta ay leedahay qiimaheedu wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaheeda haddii shilinkeennii Soomaaliga ka baxa meesha waxa weeye qowmiyadeena ba kala dhiman reer Soomaaliland maanta dhaqaalaheedu aad iyo aad buu fiican yahay dawladuna ahamiyad weyn ayay siisaa oo tan maanta aynu ku fadhino waxa weeye baraankii ama khidadii ay dawladdu dhigtay si shilinkii Soomaaliga loo soo sar lagu soo qaado in mashruucan la fuliyo hadaan ay sariflayaasha magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda macal degmooyinka Yagooriya ku jira inaanu soo dhaweyno shilin Soomaaliland ka lagu shubayo saadka waxaan soo dhaweynaynaa xalfadan ka dhacday gobolka Sool ee wanqalkii loogu wanqalayay saadka shilin Soomaaliland wasiirka wasaaradda beeraha aadan Ibrahim Asqar iyo waliba isduwa wasaaradda beeraha Ahmed Maxamed Daaday iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ayaa kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah beeraleyda magaalada Laascaanood waxaana wareynta halkaas ka hadlay isduwa wasaaradda beeraha inuu nagala soo qayb galo maanta kormeerkan wasiirka beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland in badan baad kulli waxaan malaynayaa aanu halkan aanu tababaro iyo shir isugu nimi oo aynu isku aragnaa mar walba ana waxba aad weydiinaysaan laakiin wasaaradda aanu dirayaa waan lahaa wasaaradda guuraysa wata maanta idintii soconaysa isla haysimo yatalax ka soo iyo dageeri gabagabadii wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland aadan Ibrahim Asqar ayaa isaguna ka waramay doorka ay wasaaradda beeruhu ku leedahay waddanka dhaqaalihiisu wuxuu ku xidhan yahay waxyaha dhaqaalaha beeraha ugu horeeya xoolaha ugu horeeya beeraha ku xiga fisheries-keenu waa in dhaqaalihii waddanka sare loo qaadaa oo beerihii la kobciyaa maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shalay waxaan joogay gobolkan Saraar nin Soomaaliya muwaadin ah oo qurbaha ka yimid ayaa wuxuu sameeyay xidhay dhul ballaaran buu xidhay ilaa 20 hektar laba meelooda waan u hambaryeynay waan ku dhiirinaynay oo tacab galiyay oo $400,000 uu galiyay mid walba sababtuna waxay ahayd dadkii inaanu dhiirino dadkiina ay shaqeeyaan dhaqaalihii waddanku wuxuu ku xidhan yahay gacanta shaqeynaysa aliyada alcaamila gacanta shaqeynaysa وبرخ عمر أحمد تلفزيون كقرن كسومالي الآن لا صعنات